Horyaalka Premier League ayaa inta badan taageerayaasha, ciyaartoyda iyo maamulayaasha si isku mid ah ay u arkaan horyaalka ugu wanaagsan adduunka. Dabiici ahaan waa meesha uu ku riyoonayo tababare kasta oo hami leh inuu ku soo bandhigo awoodiisa shaqo sanadihii ugu dambeeyay. Qaybtan ayaa keentay lacagta ugu badan inay ka helaan TV-yada heshiisyada ganacsi horyaal kasta oo adduunka ah. Sidoo kale, milkiilayaasha 20 kooxood ee BL-ka ayaa loo arkay inay yihiin kuwa ugu hantida badan adduunka. Ciyaartoyda iyo maamulayaasha Premier League ayaa qaatay mushaar aad u wanaagsan ama kaga wanaagsan marka loo eego horyaalada kala duwan ee kubadda cagta adduunka. Sidaa darteed 20 shaqo ee kooxaha ayaa ah kuwa aad loo raadiyay sanad kasta marka ay dhacdo in la ceeriyo macallimiin. Nolosha shaqo ee maamulayaasha BL-ka ayaa la sheegaa inay aad uga gaaban tahay marka la barbar dhigo horyaalada kale ee caalamka. Macallimiinta waxaa si joogto ah looga ceeriyaa shaqada, waxaana aad u adag in muddo dheer shaqada kooxahaas ay ku jiraan. Liiska tababarayaasha Premier League iyo muddada ay shaqada hayaan. Epanomos Andre Iraola ayaa macallin ah July iyo qabta 2023. Mikel Arteta December ayuu yimid Arsenal 2019. Aston Villa Unai Emery ayaa yimid November 2022. Brentford waxaa maamula Thomas Frank October 2018. Brighton Fabian Hazel ayaa maamula macalinka ugu da'yar BL-ka July 2024 yimid. Enzo Maresca ayaa maamulaya Chelsea 2024 July ayuu yimid. Crystal Palace Oliver Glasner February 2024. David Moyes ayaa dhawaan kusoo biiray 2025 bishii January kooxda Everton. Fulham Marco Silva ayaa maamulaya 2020. Ipswich waxaa maamulaya McKean December 2020 xilligan. Leicester dhawaan ayaa loo dhiibay Van Nistelrooy November 2020. Rediska sanadkan waxaa yimid Arne Slot. City Pep ayaa joogtay 2016. United Amorim ayaa dhawaan loo dhiibay. Newcastle Eddie Howe ayaa 2020 majaraha haya. Nottingham Forest Nuno Espirito Santo ayaa maamulaya December 2016. Southampton waxaa maamulaya Evan Grich December 2020 yimid. Tottenham Ange Postecoglou ayaa maamulaya July ilaa 2016. West Ham Graham Potter ayaa dhawaan loo dhiibay January 2020. Wolverhampton Wanderers Victor Breyer December 2024 ayaa loo dhiibay isagana. Dhawaan macallimiintan ayaa xilligan maamulaya horyaalka Ingiriiska dhammaan kooxaha ka ciyaara. Lama oga xilliga qaarkood shaqada laga diri doono. Macallin walba qaab ciyaarkiisa hoos u dhac ku yimaada ayaa keentay kooxdiisa in shaqada ay ka dirto. Xilligan waxaa jira macallimiin mugdi la gelinaya shaqadooda sida ninka maamula Tottenham oo guuldarooyin xanuun badan sanadkan ay soo gaareen. oo qayb ka yahay macallimiinta dhibaatada dhaxda ka fadhiya. Halka kooxaha qaar ay macallimiinta dhawaan bedeleen sida Everton iyo kooxo kale oo macallimiin cusub u yimid sida kooxda Leicester City oo macallin u noqday Ruud van Nistelrooy. Liverpool oo isbedel macallin gashay xilli ciyaareedkan ayaa la arkayaa inuu macallinkooda Arne Slot sameynayo bandhig aad u sareeya ka wahayd mid aan laga filayn xilli hore. Macallinkan imaanshiisa kooxda Liverpool oo islahaa Klopp haddii uu baxay Liverpoolna dhulka ay gali kartaa, laakiin wuxuu tusay in halkiisii ka sii wada guulihii Jurgen Klopp kooxdan u gaarsiinayay. Amorim oo Manchester loo dhiibay ayaa jahwareer dhaxda ka fadhiya, isna lama oga xilli uu sii gaari doono inuu sii hayo shaqada Manchester United isagoo kooxdiisa guuldarooyin xanuun badan ay soo gaareen kulamadii ugu dambeeyay.